السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا إليس تي في برنامجكي وهيلي دادكاغا oo aan kusoo qaadan doono xasuuqii 1994 ka dhacay Ogaadeniya. meelan fadhiyaan waayay oo waan ka soo dhaqaajiyay. There is tremendous oppression, namely in the Ogaden area, and we cannot just pretend this is not important. barnaamijka u heelay dadkaaga waa barnaamij aan ku eegna xasuuqa iyo tacdiyada gumeysiga u geystaan shacabka Ogaadeniya. sanadkii 1994 waxa Ogaadeniya ka dhacay kala guur siyaasadeed kadib markii jabhadda Tigreega TPLF dagaalo si toos ah ugu qaadeen shacabweynaha Ogaadeniya iyaga oo bartilmaameed ka dhigtay dhamaanba waxgaradka cuqaasha culimada aqoon-yahanka iyo maamulka Ogaadeniya. haddaba daawadayaal bishii February 1994 taliska TPLF si rasmi ah waxay u sharciyeysteen inay xasuuqaan shacabka Ogaadeniya iyaga oo hal maalin ku xasuuqay shacab si nabadgelyo ugu mudaharaadayay magaalada Wardheer halkaas oo lagu dilay dad ka badan 80 qof oo muwaadin u dhashay Ogaadeniya. TV-ga Ilees ayaa agaasimay barnaamij lagu xusayo xasuuqii dhacay 1994 barnaamijkaas oo lagu duubay stuudiyaha Ilees ee London ayaa waxaa ka soo qayb galay dad goobjoog u ahaa xasuuqii sanadkii 1994 oo ka sheekeynayay qisooyinkii yaabka lahaa iyo halgankii shacabka ee la isaga caabiyay gumeysiga naxariista daran. waxaan marka maanta isugu nimid waxoogaa xus aan xusayno dhacdooyin dadku xusaska waxaa weeye dhacdooyinka badanaa lagu saleeyaa marka bishan la yiraahdo February yaa waxaa dhacday runtii dhacdooyin fara badan oo intooda badan dhacdooyin dhibaato yaa ummadda reer Ogaadeniya ku dhacay. dhacdooyinkaas baan marka xus u sameynaynaa dhacdo weyn oo runtii taariikhi ah farxadiina way dhacday inkastoo aan laga midho dhalin laakiin dhacdo taariikhi ah taariikhda ku jirta ay tahay. runtii dadkii maalinkaa joogay ee reer Ogaadeniya ahaayeen Wardheer deganaa murugo gooni ah bay u sii leedahay because xitaa meydkii in laga aasay waa la diiday. meydkoodii intii laga aasay intii la diiday waxaan hubaa oo kor taagnaa 34 wiil ba isku gad intisaa madaxa la isugu jeedjeediyo iyagoo magaaladii ay ku dhasheen jooga yaa madaxa intisaa la isugu gadgadiyaa ciida korka laga shubay. ruuxan waa ma anu waxa yar baan ka taabanaya jaalida Ogaadeniya maanta horta waxay halkan u fadhidaa xuska maalinka xasuuqa Ogaadeniya oo official ku bilaabeen qoladan Tigreega. aad baan uga xunahay xasuuqa bilowday February 94 ilaa hadda maanta sida joogtada u socda ayaan halkan u fadhinaa waa maartay murugo weyn waan cambaareynaa waxaan cadeynaynaa haddaan nahay jaalida Ogaadeniya UK maanta arinta xasuuqa Ogaadeniya ma lama joogo waqtigii la daboolayay maanta annaga indhe iyo aqoon u ah waxaan caalamka daafiisana joognaa iyadoo qoraala oo dhacdooyinkii wadanka ka dhacay Ogaadeniya haddii 10 qof haddii laba la dilo iyadoo recording aan haynaa marka waxaan cadeynaynaa inaan ku daba jiro wax kasta oo wadanka Ogaadeniya ka dhaca oo xasuuqa inay maanta ay wax walba ay qoraal hay'adihii ku habboonaa adduunka loo gudbinayo. maanta waa maalin runtii ummadda reer Ogaadeniya u madow oo u murugo badan oo u calool xanuun badan cidii markii joogtay iyo ka dhalan doona yacni qarniyada dambe wax la ilaawi karana ma aha dhibaatada soo gaadheen Ogaadeniya taariikhdu markay ahayd 94kii bishii labaad ilaa iyo haddana way taagan tahay. gumeysiga Ethiopia
ee nooc walba isu bedelahaya hadduu soomaali ku hadliyo hadduu wayaano ku hadliyo hadduu xabashi ku hadliyo hadduu shaydaan ku hadliba hadba nooc isu bedelahayaa weli dhibaatadii way taagan tahay kamana ayna bixin laakiin biidni illaahi karim mar bay ka bixi doontaa lana la xisaabtami doonaa gumaysigan madoowe fadhiya godanka ciideenna galad kama sugayniyo inuu gogolna jiifsaaye go-aankiisu wuxuu yahay garata shaaleeye guraha habeenkii waddada dad u googooya intii aad galgalataan bambada guudka kaga tuura yaa sayidkii salaam baan u diray gacan salaameede isagaan salaad iyo sujuud subax irdaynayna subaxdu berbera soo galuu seef ku weeraray sayidkiiyo ismaaciil miraa koofil soo dilay sayidkiiyo ismaaciil miraa koofil soo diray annaguna sidiisoo kalean seefta wadanaaye dalkiiyo xornimo doonayaa xaashi soo diray xabashkiiyo wuxuu diidan yahay xaylaha yimide inuu xodeeyo joogana ma raba xerada dooloode aniguna xamaasadii darteed xalay miyaan seexday gobonnimadu xaalkeedu waa xoolo kaa maqane injiray cabtaa dhiigna waa lagu xadhaadhshaaye hadba xeeshii lagu raadin karayo xanaano ah xasan iyo xuseen baa la dilay oo xarbiga yaale xaawiya waxay dilahayaan xaawo tima dheere aniguna xamaasadii darteed xalay miyaan seexday balamboolada duuliye beriba meelaadi balaf waxaan ku haynaa inaad berri baxaysaaye bayaxow haddaad gaadhiyo webiga baashiisa ood bannaankii cawlay tagtiya galihii baarxoore boostadan waxaad igu geyn geesigaan boqone bismillaahi anigoo lahoo baqashadii diiday ballankii ilaahay anoon baallo uga leexan bare iyo watiin iyo anoo barani tiinteenna baa suka henri haddaan lala banjoogobin bilinkii addiisiyo haddaan biruhu soo daadan basad raacdadaayo haddaan boosho laga waayan badharjaada nimankaa tigree ugu basaasaya bawdiyaha haddii aana ka jabin oo boqnaha goynin ballankii ilaahan mariyo hadalku baaba xaaji maxamed cabdi yaasiin diirane oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ee xilligaas ayaa nagala qayb qaatay barnaamijkan isaga oo ka waramaya dhacdadaas iyo siyaasadihii ka dambeeyay xasuuqii ogaadeynaya ee 1994 dhacdooyinka waaweyn waxaa leh bishan waxaan idhahnaa badanaaba xilligii aada la socoteen ee ahaa 1991 isbedelka markuu etoobiya ka dhacay la soo saaray xeerkii cusbaa ee qowmiyaadku si kumeel gaadha inay ugu wada dhaqmaan ahaa ee la odhan jiray mataqaanaa interim charterka ama xeerkii kumeel gaadhka ahaa waa kii wadamada qowmiyaadka etoobiya markaa ay gumaysato iyo kuwii wax gumaysanayaba 2 sano iyo waxaa la siiyey muddo ugu badnaan bar loogu daray qoladii caasimadda qabsatay adisababa inay intaa xukunka sii hayaan 2 sano iyo barhka gudahooda qowmiyad waliba inay dhisato marka maamulkeedii ayay ahayd markii 2 sano iyo barhkaasi ay dhammaystirmaan ciddii ku qanci weyda inay etoobiya kasii mid ahaato in baarlamaankeedu fadhiisto 3 meelood oo 2 hadduu isku raaco in afti laga qaadana afti markaa laga qaado muddo 3 bilood gudahoodana lagu dhammeeyo xeerka lagu heshiiyey ee lagu ogolaaday ee jabhadihii soo dagaalamayay iyo qowmiyaadku ku heshiiyeen kaasu ah jabhadaha soo dagaalamayay ONLF baa ka mid ahayd ama reer ogaadeen iyo WSLF iyo ONLF markaa midoobay baaba ku jiray waxaa ku jirtay Eritrea oo EPLF baa ku jirtay TPLF baa ku jirtay EPDM baa ku jirtay oromada ku jirtay taamxaarada ku jirtay sidaan baa ku jirtay canfar baa ku jirtay qodan ardoof baa ku jirtay way fara badnaayeen halkaas markaa xilligaa jaartarka marka la saxiixayay khayaanada dhacday ee weyn waxay ahayd waxyaalo waxaa bani aadamka jira waxbaa la samaynayaa waxaa dadka oo dhan in loo samaynayaa loo maqashiinayaa laakiin hal meel quraa loola jeeda waxa dhacay saasay ahayd hal meel quraa loola jeeday waxayna ahayd in Eritrea ku xorowdo laanna Eritrea cidda keliya markaa waxay ahayd xornimadeeda aan iyadu cidna kala tashanaynin laakiin si sharciyana legalitiga uun maartay la mariyo taas marka ONLF iyo reer ogaadanya iyo shacbigeenu waxay ahaayeen inaynu aragno inuu ka faa'iidaysano tiiba waxaa la sameeyey diyaar garowgii
doorashooyinkii baynu samaynay wax walbaan siduu ahaa u samaynay muddadaas tigreegu markay arkeen arrintaas siday tahay inay u dhacayso qorshahiina aan sidii u fulinayno ilaan kumayna talageline yee waxay bilaabeen siday u carqarayn lahaayeen marka bishan February waxaa la yidhaahdaa waa bishii carqaladii ka hortagga ama burburintii sharciyadii charterkii 1991 la samaystay ee ku meel gaadhka ahaa burburiskiisii marka bishii la bilaabay weeye marka waxaan ku xusaynaa waa bishii sharciyadda la burburinayay waa bishii dagaalka maanta socda inuu bilowdo ay bilaabantay markii ay arrintaasi dhacday waxay isku dayeen baarlamaanka reer Ogaadenya magaalada madaxdu waxay ahayd Goday inuu Goday ku shiray ahayd anigaan idin la hadlayaa maalinka Goday baan joogay baarlamaankana inuu ku shiray halka aan isugu yeedhnay waxaa dhacday gudoomiyihii jabhadda xilligaas naxariista jannaha Allah siiyo Sheekh Ibraahim Cabdallah iyo mas'uuliyiinta kale xarunta dhaxay markaa joogeen oo garigo aan ahayd مسؤولين عن كم ذا هاي وهالك الله دري باجرتي أنا عبد الرحمن شيخ مهدي أنا هين محمد رشيد بان السعودية إسنا مسؤولين هرسي جوكتي ماش أو متقنا أو كسيه الجليسين ويجرين وحانس كود داينا مركا الرمجري أوغود إن بارلمانكم مركا هالك شركة قبته تقرأ يقود مركا بالله بيا إن أهرنتا كهر تلان يعني مدحويني حل جاس وها حسن جرين نهارس جنالسية أو رجع لاين كم ذا يا ويارن أتسبع الله وياري سي برلمانكي وصل شركة ودعن مدحويني هو مقان يجود يفلون توقع مقان تاي ويأذكت إذا شركة كدعو مدة لداهي حلو خصبي إلا إذا هذا نو شركة برلمانكا يوصل كدعن قدي جيجي هلا كير وجد عبه مركا يوم حي كدعن أنا وجد هذا وحي هيد إن خلاف دعوه أو نرى مركا أو سيبا قدي عاصمة دبوا جوجاي تكتب محا برلمانك لقى الدنيا هل كان لو قيب سبب شركة دعواي لكن ضد آذو فهم سن رنتي يقرشها يوحي دوري منه وحصوص على مركا رنتي وحلو دورسي كريه هيد إلى عدو مركا أمو جنيو أنه مركا وحينو منتد كواهين إنه إن دقالكو دعي دونا حبضنا ويد باللابان دونتا تقرينا وكاقو عنتهي إنو إنا لدقالمو إنو سن احترامين قوانين تا يوحي هشيسكاها لكن انت كور ريسا إنا شرعية داس كاميرا دالينو يدو شرعية داس تالو مركا دقالكو دعو حمي بارلمان كورنان باوحاني نموكي جيجيجي إما دليل سومها مدحويني باسال لغو أفري لمان جيجيجي تغا ولي ومحاصة بإني كل واسوق حين ما بكلا هريسان هل بابور هل صور قاتبر كريم هبين كي قبل دهر أي صوق قلن صبحي مركي قبل دهر بوندار رافين ديق محمد عرب وقدومي كحوين كي مركا دق مداها نحارس جنة الله السيه كل كساقوتي او تاغي هي بوندار يكون بوندار يرهن صلح هل كاسي كدلين لكن محمد عمر توبة وقدوميها هانا أدراش كميش اللي هذا أرتي سيكوين تعرف ما كون هذا حاليا ما هي سوان هاي إنه أوكي فلي والله بيه طبعا كده سيستيد بيت بتكون ورنير وهذوكتين وحكا دعي باللوغة وحان لهنا بشاسي وباللوغي دقالك ما أنت السعودة يقرحيسي intaasoo dhan oo dhacday wardheerna aad ogtihiin inay 8 qof ku dhimatay Sheekh Ibraahim iyo waftigu waday iyo mas'uuliyiintii iyo meeshii si loogu dhamaaday ogtihiin ba haddana waxaan nidhi jigjiga xubnaha baarlamaanku waxa soo dhan waa inayna danaynin waa in ay fadhiistaan oo soo saaraan go'aankii sidii baa lagu fadhiistay xubnaha baarlamaanka xilligaas waxay ahaayeen 110 xubnood 110 xubnood doorashada si lagu galay 87% ayaa oo NLF ah laakiin siishinka ama fadhiga waxaa fadhiyay 109 hal nin baa maqnaa
oo socoto ku maqnaa 109 baa cod weliba gacantaaga isku raacay hal nin muusan khilaafin kolley uurkiisa nin walba ilaahay baa og laga yaabi lahaa hadduu mid jiri lahaa xoogaa malaha meela yar gaban lahaa dee intan meelu kaga hadhuwa kaleeto yaaba iska adkaydba arrimaha u adkaa ee tigreega iyaga laftooda muwaajahooyinka ugu adkaa ee soo maray bay ka mid ahay ayna weligood maskaxdooda gelin maxaa yeelay within that period marka ay dagaalka nagu soo qaadayeen 16 urur oo Soomaali ay ka sameeyeen oo nooc walba oo magacyo walba wata mid reer hebel iyo mid in hebel iyo mid magaalo hebel ah wax walba way sameeyeen 16 ka urur bay ku qancin ONLF ama Soomaaliha inta isku qancaan sameynaya arinta Tigray kuma riyoon that day markay arintaasi dhacday yay Tigray waxay go'aansadeen wax sharciyad ah ama wax barnaamij oo siyaasi ah oo ay ummadda Soomaaliyeed ee reer ogaadeen kaga guuleysan karaan inuusan jirin in xabad ridaan mooyee maalinkaas horta xabad u dhacday xabadana ay go'aansadeen taangiyaashii dhulka laga wada qaaday iyo ciidamadii la qaaday oo dhan maalinkaas la keenay waad ogtihiin inta ka dambaysa wixii dhacay xasuuqii qabr dahre aad ogtihiin maalinba maalinta ka dambaysa way sii dhacaysay kolley liiskii hadda ima hor yaallo laakiin liis dheer oo ilaa mataqaanaa 12 events ama xaadiso oo February dhacday oo mid walba mid kale ka muruga badan tahay laakiin ay ku jirto midda taariikhiga ah ee maantana taala ee ilaa yoomina hada taariikh aan hore u soo marin dalkeena iyo dadkeena Tigreena hortaalla adduunka oo dhan caalamka hortaalla ayaa jirta oo guushaasi waxay ahayd guul sidaas ku soo hoyatay laakiin sida lagu soo hoyina ay adkayd waxaan dadka dhammaan ummadeena reer ogaadanya ummadda Soomaaliyeed dadka nabadda jecel kuwa hor socodka kuwa bani aadamka aan u sheegayna oo u gudbinayna in ummadda reer ogaadanya ay bishan ku xasuusato dhibaatooyin badan hase ahaatee ay ku xasuusato go'aankii ay maalinka qaadatay inay mintid wali ku tahay ayna fulinayso oo ay khasab tahay dadka reer ogaadaya in afti laga qaado sharciyadii aftida laga qaadi lahaana maalinkaas ay go'day mana dhici doonto wax ka bedeli kara marka aftidooda iyo iyaga doorashadooda waxay ku qaataan waxaan ahayno dambe oo la keeni karaana ma jiro waad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dadkii ka soo qayb galay xuskan oo ahaa dad goobjoogayaal u ahaa dhacdooyinkii foosh xumaa ee dhacay sanadkii 1994 waxaa ka mid ahaa dad joogay maalintii xasuuqi ka dhacay magaalada Wardheer oo lagu dilay in ka badan 80 qof halgan ogaadeen iyo dib badan buu runtii soo maray wuxuuna ahaa halgan isu qori dhiib laakiin maanta waxaan maalmaha uga aqoonsanay waxa weeyaan waa maalin uruga leh waa maalin ninkii ogaa ama reer ogaadeen iyo joogay uu aad iyo aad u dareemi kar xanuunkeeda uuna u ogyahay meel ama madaxdii kolka madaxa laga soo galo runtii way xanuun badan tahay anigu waxaan taagnaa dhacdadii ka dhacday magaalada la yiraahdo Wardheer yaan joogay dhacdada ka dhacday Wardheer ruux walba wuxuu taariikhda intuu joogo uu ka sheekeeyaa waliba an kastoo xusuusan ahaan aanu runtii ayna taariikhda wadankeena aanu iska ahayn dad uun iska xoolo dhaqataa haddana Wardheer baan anigu taagnaa maalintii ay ka dhacday qisadu waxay ahayd dadku bilow aadanku waxay dhahaan hadda ama reer ogaadeen u dhashay waxay dhahaan ONLF baa xabada bilowday ONLF xabada ma bilaabin run ahaan markaan ka hadlayno waa lagu bilaabay taariikhdii hadda gudoomiyuhu ka sheekeynayay ee madaxdii la laayay qabri dahare dad badan oo dhalinyaro ahaana goday lagu laayay oo sidaas oo kale intay uga yimaadeen xitaa dhalinyaro kubad ciyaaraysa kubadii intay ka timid ilaa hadda meel la geeyay aan laga warqabin ay ka dhacday Wardheer qisadii ka dhacday waxay ahayd iyada oo gudoomiyaha loo diiday inuu dhagax buur galo qisadu ka sheekeynay gudoomiyuhu ahayd qabri dahare laga ambabixiyay ragii madaxda ahayd lagu laayay ayuu gudoomiyuhu wuxuu yimid aaga Wardheer markuu yimid nin Tigray ahaayo la oran jiray adu magaciisa hadda waan iloobay Wardheer xukumay ayaa wuxuu yiri ceeb bay nagu tahay hadaanu nahay Tigray inuu maanta gudoomiyihii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya uu ka baxo wadanka ogaadeenaya
marka waxaan rabnaa in ay jabhadu u yeedho uu noo yimaado oo nu wada hadallo markay dhaheen inaynu wada hadallaan rabnaa wardheer intaasoo maalmood baanu guriga diyaarinayna rabadlaan bay ahayd waanu keenay waxay soo galeen 3 galabnimo wadankeena si aad u ogtihiinba waxaa la tukadaa 3 barka 3 barkii oona weli la tukanin casarkii baa la tukadaa casarkii oo weli la tukanin ayaa kii gudoomiyaha degmada ahaa ee wardheer ayaa wuxuu u yeedhay gudoomiyihii jaaliyad xafiiska wardheer allah u naxariistay Ibraahim Sheekh Muuse wuxuu ku yiri waxaan rabnaa xafiiska iigu imo xafiiskii iyo xafiiska degmada iyo xerada ciidankuna way isu dhow yihiin wuxuu damcay Ibraahim inuu galo xeradii ciidanka markuu damcay inuu galo ayuu nin tikray ciidan ka soo baxay xeradii militariga ayaa yiri ku leexo xeradii militariga kuma leexanayo buu yiri markuu kuma leexanayo xeradii militariga ayuu hadda ka hor waxaa dhacday qiso ka horeysay wiil dhalinyaro ah oo habeen hurday ay soo qabsatay markay soo qabsatay wuxuu yiri waxa la damcay xerada in la gal markay soo dhalinyaradii wuxuu ku yiri waral maad reeyaalo iga reeba nimanka nin boolis ahaabu ku musanaabu yiri hebel iga reeb ninka wuxuu yiri yarkii isaga xeradii buu galay marka dhalinyaradii booliska ee wardheer markaa joogtay waxay dareemaysay tii hore wiilka halkii baa lagu dilay oo wuxuu yaalay xafiiska hortiisa xitaa waa la diiday in la aasay marka dambe ay ka timid goday markii laga soo hadlay la yiri hal la aaso baa la aasay maalintii gadood xun baa ka dhacay iyadoo taas dhalinyarada u horeysay ayuu diiday Ibraahim lug bulaa oo 77kii dagaal ku go'ay iyo xerada gal baa la yiri xeradii inuu galo wuu diiday isagoo meeshii taagan uu tikray inuu taxantiqiya damcay yar booliska ahaa soo kacay ninkii tikrayga ahaa ku dhuftay xabad markuu xabada ku dhuftay isagiina waxa u daba mariyay ku kala u daba mariyay meeshii buu ku dhintay wiilkiina wuu galgashay xeradii wuxuu galay wuxuu galay xafiiskii degmadu galay xafiiskii markuu galay gobolka ها إبراهيم باقل قشي وحرفيسكي قال لما ذي ويلكي وود انتي ها بوليسكا كي كلا أنا وود انتي ها ويانها ها لما ذي هالكا لما ذي ميت وهالكي ياله بل يردي مركز جبهده هي ويصاب هذا إبراهيم بيدم علينا كحيسته أذوق كلك واي كحيستي دقالك هالكي سيدي بكون باللامي وحاي من عيدا كي قبر الدهري وحاي من عيدا كي قلادي كي بوخ بايمد markii u dambeeyay dagaalku ilaa wuxuu socday fiid habeenkii subax halkaas ka bilaabmay maqribnimadii lama afurin wali afurkii ma gaarin afurkii oo gaarin buu dagaalkii bilaabmay halkii adigu dagaalku wuu socday markii ay ahayd 7 iyo barkii ayaa waxaanu ku guuleysanay inuu sheekh gudoomiyihii ka baxo magaalada subaxnimadii dambe weeye 7 iyo barkii intaana dagaalkii socday runtii ciidana gurmadu imanaynin oo meel ku jira وحوجا يربى الوفدو كتمت وحوجا عادنا ضد بدن باكي يمد ورجع هاي صابر مضي أضياء وبناي أضياء حلقي كل أضياء بقى أدوك دجال كحلقي بكل عي عيدا كأننا مركي ضم بتشبهد وحال عي دتك الشعب كهابة حاين دتك ماشى كل انت رونهان شبهد وحير بيبا هيدو أول هربة تشبهد إسكامين عجرنا رونهانه وحال يجي مجال والبقال والبشر يتمن أسكري كبضن أو أنا في مجين كرتان حفيز يدا marka 15 wiil quraab xafiiska joogtay iyo dhowr iyo 20 gudoomiyaha la socotay ciidanka idil ee jabhada ee meesha joogayba markaas isku dar 40 nin kama badnayn ee isii ahaayeen marka meeshii dagaalkii markii ay sidii ay u dhacday adu gudoomiyihii markuu baxay ciidan ka yimid magaalada la yiraahdo gaashaamo ayuu xerada kor ka soo qabtay muddo adigu 5 saac iyo badh subaxnimo ah runtii dadkii maalinka joogay ee reer ogaadeen iyo ahaayeen wardheer deganaa murugo gooni abay u sii leedahay because xitaa meydkii in laga aasay waa la diiday meydkoodii intii laga aasay intii la diiday waxaan hubaa oo kor taagnaa 34 wiil ba isku god intisaa madaxa la isugu jeedjeediyay iyagoo magaaladii ay ku dhasheen jooga yaa madaxa intisaa la isugu gadgadiyay ciida korka laga shubay ruuxan waa maalin الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله وما له كنت أهم ومدريرو قاعدين يمرقوا يعيل فربضان أوله
waxyaalo badan oo ka dambeeyey oo dhacday bishanna way jirtay iyadoo ay saas ahayd habeenkii adigu dagaalkii markuu dhacay raggi sidii loo xasuuqay muddo 3 maalmood ka bacdi waxaa yimid xasan jirar qalinle oo ahaa gudoomiyihii markaa magacan ay kilalka dhahayaana madaxweynihii kilalka ah allah u naxariisto waxaa yimid Malasa Sanaawi ragu la socdo baa yimid shir baa la aroortii la qabtay waxaa jirtay markaa gabadh allah u naxariistay degmo Cabdi Cali la dhihi jiray oo degmo Jowxa la dhihi jiray oo habeenkii nolol lagu qabtay noloshii gabadhii lagu qabtay waxaa la weydiiyay Malasa waxaa lagu yiri gabadha noocaas ah baad xalay la qabtay xasan jira afqalinla afkiisa ka weydiiyay waan taagnaa anu shirka waa waxna waa wax sheeka waxna anu waa waxaan taagnaa wuxuu yiri gabadhii noocaas ahayd baan ka aqrabaa gudoomiye Malasa wuxuu yiri waan keenayaa aroortii markii la isku soo noqday casar bay markaas ahayd aroortii markii la isku soo noqday wuxuu yiri gabadhii xasan jira yiri gabadhii aween ka sugahayay wuxuu yiri gabadhii rag caraysnaa oo cunay buu yiri raggi soo cunay buu yiri maanta raggi soo cunay birtiya dabka ka soo gudbay ee soo cunay buu yiri dhargigi ee reer wardheer maanta iyo wardheer iyo lagu laayay buu dheeldheelo halka ku wada dhintay buu yiri bal waxaad ogaataan markaas inuu dadkeenuna uu yahay wax aan u tirsanayn oo wax yani xoolo dhintay ay yihiin iyagana ninkoodu uu qaali u yahay 83 nin oo abu raggi birta soo calaashaday baa halka ku dhintay buu yiri marka gabadhii nin caraysnaa markaan waan celinahayaa way isku qirayaa hadaba yaa dilay buu yiri gabadhii markaas raalli allayga ahaado gabadhii saasay ku dhimatay marka waxa weeyaan runtii wardheer maalintii wardheer waa maalin xusuus iyo murugo badan waa maalin aad iyo aad dhibaato u badan iyada oo ay ka horeysay tii qabri dahare dhacdooyin kale oo fara badanna ay ka horeeyeen kuwa badan oo ka dambeeyay oo tii ka dhacday qabri dahare maxaabiista 30 iyo dhowrka ah lagu laayay ay ku jirtay tii fooljeex lagu gubay raashinkii iyo dadkii dalagii ay soo beerteen masaakiinta ahaa u baxay ay ku jiraan baa waxa weeye dhibaatooyinkaas oo fara badan baa horta dhacay haddana ummadda reer ogaadeen iyo run ahaan dhibaato aad u fara badan ayaa haysa hadda waxaa jirtay 4 bilood ka hor dhacda kuwii ka sii xanuun badan oo ka dhacday magaalada la yiraahdo Marsan Qalqalooc waxaa la yiri dad 23 qof ah oo laga soo qabtay tuulooyinka aaga u dhuqaara wardheer laga keenay maxaabiis ah ayaa intii god lagu guray iyagii oo nool godkii lagu aasay oo hadda dadkii reer joogay Marsan Qalqalooc ay haddan ilaa hadda waxa lagu leeyahay dad baa waashayba oo u waashay dadka lagu intii godka lagu qaaday isagoo nool la ilaaha illa allah oo isku xidhan korka laga aasahayo waa qisa dhacday 3 bilood ka hor oo xasuuqii ka horeysay qoriile iyo kiiguna gadoodba way ka horeysay marka waxa weeyaan xasuuq baa maalin walba ogaadeenaya ka socda inta uu gumaysi jirana wuu socon laakiin ummadda reer ogaadeenaya waxaan leeyahay meel kasta oo joogto murugadaas iyo ciilkaas wuu ina haysan haddii aynaan tawfiiq aynaan la imanin dareenkayga ma qiyaasi karo runtii aadna inaan u hadli karin baan u malaynayaa waxaan sheegana maba garanayo mar haddii aanan maanta xusaynin xorriyadda ogaadeenaya oonan dhacdadan ku xusaynin ogaadeenyoo xorowday aanan xasuusanaynin oo hinta unbay iisii badinaysaa kulley xuskeedu wax farxad ima gelinayso laakiin waan xusi mid baan xusi anugu waxaan leeyahay reer ogaadeenaya maanta guul baa taagantihiin daafiyaha caalamkana waa laga ogyahay dacatiyada ka jira ogaadeenaya iyo dhibaatooyinka loo geystay shacabka reer ogaadeenaya taasaa waxay ii tahay guul iyo farxad oo mar kale qalbigayga dareen gelinaysa xorriyad hididiiladeed ah waxaan leeyahay hal la israaco maanta waxaan u baahanay inaan israacno xasuuqa waxba aanu ku noqon maayo dadkii taagnaana way sheegeen oo ka sheekeeyeen mid walbana midka kale uu ka daran yahay kii hore waxa iiga daran kaada taagan walaalayaal waxaan u baahanay inaan israacno ummadda reer ogaadeenaya waxay u baahan tahay inay israacdo waxaa wax lala yaabo ah oo wax laga xishooda ah inuu qof wadan xor ah jooga oo haysta service caafimaad
mid waxbarasho ilmihiisi u haysta akoon kaar haysta oo derbigu soo gaadhaba lacag kala baxaya oo bisha 30keeda helahaya wuxuu ku noolaado gurigu ku noolaado ilmihiisi ay haystaan daryeel waxbarasho ay haystaan caafimaad uu haysto nabadgelyo uu haysto ummad la dulmay oo la xasuuqay oo la dhacay oo la dilay oo binow aadmi wixii dhibaatayn lahaayoo dhan korkooda ay tahay inuu dushooda ka sii raadsado wax kale uu ku ceesho taasaa wax laga xishooda anu kulli taan aaminsanahay qof intaasoo dhan ilaahay siiyey oo ka badbaaday dhibaatada ogaadeen ya taala inuu kuwii dhibkaaga haystay inuu ugu kortago inuu sii dulmo oo iyagu ku sii kor ceesho ganacsi ku korsamaysto guri uu ku helo oo boosaskoodii iyo goofafkoodii awowyadoodii la laayay ooga hadhay ee ama beerhayd ay tabcan hayeen ama boos ahaa ay ku nooleen bulcawsku oogu dhisnaa in isaga loo calaamadeeyo intii loo jaro la yiraahdo ku soo dhawow welcome la yiraahdo oo uu ku sii kor faa'iido taas horta wax laga murugooda runtii waayo wuxuu ku geystay cadawgu waaba cadawgaagi laakiin kii inuu cadawga kaaga heliyo ay ahayd inuu cadawga u heliyo oo uu adiga kugu kor ganacsado kugu kor macaasho kugu kor faa'iido caalamkana uu u soo gudbiyay in horumar la gaadhay taas horta wax laga xishooda aniga wiilka Tigrayga waxba ima yeelin inuuna waxba yeelin baan kuu sheegi isagoo diin laawo on diin lahayn cawaan ah 3 milyan dadkiisu dhannayn iyo qoomiyadii gudaha ballaadhneed ee Itoobiya la dagaalamay oo uu damcay inay gabdhihiisu xor ku noolaadaan oo hooyadii xor ku noolaato ya gabdhahoodii shaaqiyada ahaayee dadka weelasha u dhaqayay boqortooyada xabashida u dhaqayay weelka inuu xorriyada gaarsiiyo ku hamiyay isagoo kufaar ah oo diin laawo ah ya gabdhahaagii qaaliga ahaa Soomaalida kale gabar reer ogaadeen yaa ninkii guursan ragga inuu wax dheer isu haystay waa wax la hubo la yaqaan inuu baawar rag lahayn uu leeyahay isu haystay gabadheena waa la wada og yahay niman 100 halaad iyo baar qabkood ilaa ma hungureyn jirin oo Soomaalida kala gabdhihii nooca ahaa ee sharafta iyo cisiga ku nool iyagoo gumaysigu dalkooda haysto awowyadoodii jaahiliinta ay ka badbaadiyeen ee cisiga iyo sharafta ku hayeen awowyadanu iskuul gabar reer ogaadaya lagu madarjin wargaalkan gabadha kama celin kar xabashigan xune gabadha iskuulaana inoo joogtay dhigi jireen sharaftanaday badbaadin jireen cisiganaga ilaalin jireen qiimaan lahayn sharaf baan lahayn sharafti awowyadanoo jaahiliin ay soo ilaaliyeen ciyaalo suuqin maafiya ahaa gatay gabdhihiisa ahaa oo diin laawayaal ah kuwii diinta sheeganaya ee Bukhari iyo Muslim xiftiyay ayaa gabdhihii oo lagu dhaxkufsanaya waxay leeyihiin waa nabad waa xor waa safe ya ganacsi bay u tageen gabdhahooda sharaftoodii bay ku ganacsadeen cirdigoodii bay ku ganacsanayaan xabashiga xun ee wayaalaha ay hortooda ku fuulayeen ka dhicin karin waxa wax laga xishooda oo wax laga qiirooda ani maanta waxaan taagnayaan looba qiiroon Tigray kuwaasa u baahan maanta in laga qiiroodo waayo intay ku filaan weyday xoogoodi ku filaan way caalamkii siiyay nabadgelyada iyo guryaha iyo maxay dhaqaalaha iyo lacagaha siiyay ku filaan weyday iyay dadkii dulmanaa ee inay u hiiliyaan ay ahayd ilaahayna weydiin doonaan maxaad ugu hiilin weydeen la oran doono ayay korkooda inay ka sii macaashaan u tageen halka waxaan leeyahay war ilaahayna u soo noqda oo ilaahay u toobad keena oo wiilasha kaafiriinta ahayd Tigray gabdhahoodii xunxumaa ee gabdhihiina la midka ahayna jirkooda iibsan jiray bay sharaftoodii kor u qaadeen oo cisi iyo karaamo u yeeleen war gabdhihiina ilaahay sharfay ee ilaahay xijaabka korkooda ku raariciyay ee inaad ilaalisaan uu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala yeena gabadha muslimadda ah soconin maalin galinkeed meel loo soconaya iyadoon muxrimkeedii wadanin baad cadow gacanta u galiseen oo gaalo u xareyseen xabashi uraysa Tigray urahaya aad u xareyseen oo leedihiin nabad baanu haysanaa waxaan leeyahay wiilasha reer ogaadeen ee dhalinyarada ah wuxuuna wiilka Tigrayga ay yeelin hayeelina wuxuuna hooyadii ku sameeynin hooyooyinkiina ku sameeynina wuxuuna gabdhahooda ku sameeynin gabdhihiina ha ku sameeynina guusha reer ogaadeen maanta banaanka taala xurriyada ogaadeen maanta banaanka taala bi idmillaahi karim wayna imaan doontaa insha Allah way imaan doontaa ilaahay toobadiisu way furantahay toobadkeena ilaahay u toobad keena oo ilaahay u soo noqdo war idigoo xirriyad heli kara maxaad gumaysin gurigaaga maxaad nin qeyrka oogaga shaqeyni oo oogaga adeegi oo xoolahaaga ugu soo dhici oo gabadhaadi ugu soo dabi oo hooyada aad ugu gacan galini adaaba heli kara inaad xirriyad ku noolaatay ma idin qalma inaad Tigray u shaqeysaan oo dadkiina uga dhax shaqeysaan
oo dukaamihiina usoo dhacdaan ood geeliina usoo dhacdaan ma wax idiin qalmaa ma wax idin la egbaa ma wax sharaf idiin abaa ood horumarku u sheegan kartaanbaa war guusha waa la gaadhi oo ogaadeen way xoroobi xageed ku dambayn doontaan su-aasha taalla waa taasi xageed ku dambayn doontaan ma maqalaa tagaysaan ilaahay agtii maxaa idiin yaalla maxaad u haajiri weyday maxaad dagaalami weyday labadaas idiin taalla war maxaad u haajiri weydeen ama aad u dagaalami weydeen cadaabka ilaahay inaad galaysaan waa yaqiin labadaas idiin taalla gabdhihiina difaaca oo hooyooyinkiin difaaca oo qayrkiin la sinmo xorriyadda maanta caalamka wax gumaysi la aqbali kara ma ahe gumaysi aqbalina anu waxaan leeyahay ha xorowda ogaadeen ha israacda ree ogaadeen ha israacaan waxaan rajaynayaa geeska afrika inaad ka talin doontaan wax maanta inaga sharaf badan ma jiro Soomaali sharafteedii maanta inaga qaadnay maxaa yeelay dadka kali ee of yiri Tigray baynu nahay Soomaali oo dhan bay Tigray xukumeen maanta laakiin dadka ay xukumi waayeen ee of yiri waa reer ogaadeen markaan leeyahay waa intii dhiiga iyo uuska lahayd ee sharaftii iyo cisiga iyo karaamada lahayd rag iyo dumarba intaasaa of tiri intaa sharafteeda idinkoo hagoogan hayo shaatigeeda xidhanaya soo raaca dadkiina oo maanta guusha garab istaaga ya Abu Sufyaan markii la yiri Maxamed wuu kor fadhiyaa Maka yuu gurgurtay bal fiiri wuxuu diiday in ogaada loogu soo galo gurigiisa ninkii gala waa ammaan baa la yiri Sufyaan gurigiisa ninkii gala waa ammaan baa la yiri haddaba soo gala jawxo horin ninkoo u soo gala is soo wada dhiiba wadankiina hal maalin gudaheed baad ku qabsanaysaan idinma gumaysan kara Tigray geeska Afrika idinka ka talin biidmillaahi kariim waxaan leeyahay ogaadeen ha xorowdo ha israacdo hamidowdo cadowga ogaadeen ha duloobo talada Allah ka qaado tan faraaruq Allah ku rido tawfiiqda Allah ka qaado ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay mid carar iyo mid caydsan iyo mid la dil iyo mid dil inay noqdaan biidmillaahi kariim ogaadeen waxay noqotay gurigi gaajada guriga dheregta ha noqoto gurigi dulmiga noqotay gurigi amniga ha noqoto iyo cadaaladda guriga cadaalad darrada ay noqotay guriga cadaaladda ha noqoto biidmillaahi kariim dadka reer ogaadeen iyo dad loo soo shaqo tago oo caalamka kin nabadgelyo u baahda meesha nabadgelyada loo soo doonto ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dhigo subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa tawfiiqda inuu nawaafajiyo taladanadana mid ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi shacabka ogaadeen ayaa ah dad aan niyad jabin oo ku adag halgankooda diyaarna u ah inay u dhintaan diintooda iyo dalkooda balse aan qaadaneyn gumaysiga in la dulmiyo waxaana hal ku dhig u ah guul ama geeri gumaysigu noocyo badan buu leeyahay laakiin direct gumaysi oo maaragtay ah dhinac dhaqaale dhinac dhaqan dhinac nabadgelyo dhinac waxtar ayaa ummadda ogaadeen la gumaystaa waxa weeyaan ummadda ogaadeen adduunku waxay ka dambaysaa qurun waxa weeyaan biyo nadiif laga ma helo maanta ogaadeen waxa weeyaan qofka ogaadeen jooga ee ku nool ee muwaadinka ah ma uu laha xorriyad uu ra'yigiisa jeedsan karo waxa weeyaan ma ay laha awood collective ama isu timid oo nidaam ay dhisan karaan oo ismaamuli karaan oo bulshadooda wax u qabsan karaan ma laha awood qofka muxuu ahayto ogaadeen maanta ku nool ee wadankaas u dhashay ma laha awood uu wax ku baran karo ma laha muxuu ahayto mu'assasad ama hay'ad caafimaadkiisa uu ku daweysan karo maanta waa la socotaan qof kasta intiina meesha fadhiday inta inaga maqan baa abiis qofku bukoodo waa in la soo qaado Nairobi la keeno marka waxa weeyaan wax allaale waxay haystaan dadka ma jirto gumaysi kii ugu xumaaba haysta ogaadeen waa dawladda kali ah wadanka kali ah oo wadan kale oo Afrikaan uu gumaysto qurun waa la soconaa Afrika oo dhan waa la gumaystay laakiin gumaysiga cadaanka uu ka kacay adduunka gumaysiga uu ka dhamaaday hadda waxa jira waa gumaysi maartay ama dhaqaale ah ama cultural ah ama fikri ah waxa la isku hayo laakiin gumaysi toos ah oo ciidanka korka ka saaran oo qofkii oo nafiskiisa la tirinayo waxa jira wuxuu ka jira kaliya waa ogaadeen maanta wuxuu ka jiro waxa weeyaan fikrad ba adduunku isku haystaa ma aha ogaadeen xoog baa lagu haystaa laakiin waxa weeyaan imsu socon doona way su'aashu Ethiopia way ogtahay xaqiiqo way ogyihiin Tigray way ogyihiin inayna ku waari doonin way ogyihiin ogaadeen inaan ka saari doono way ogyihiin inaan xoroobi doono way ogyihiin in aan jabin doono waa taas waa xaqiiqo weeye waa wax la ogyahay weeyaan wax la weydiinayo qofna ma aha sababta waxa weeyaan waa taariikhda iyo sayruuradeeda iyo sidoo u socdo qofku markuu xornimadiisa aamino markuu dulliga ka gilgasho markuu gumaysiga diido khasab way inuu gaaro waa khasab inuu gaaro goolkiisa waa khasab inuu gobonimadiisa gaaro waxa weeyaan halganka ogaadeen waa halkan isu soo dhiib ahaa gacan bay u dhiibtay awowiyaashana soo dagaalamay aabayaashana soo dagaalamay awowiyaashood baa soo dagaalamay
annagana waxaan ku jirnaa xalaqadaas isdaba socota silsilada isdaba socota waxaa weeyaan dabkana waa la wadi dagaalkana waa la wadi ogaadayna way xoroobaysaa dowladda Etoobiyana waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa maanta onolof geeska Afrika waxa ka jira ama halgan ama dowlad ha ahaato geeska Afrika maanta naga ugu sarreeyna faaniya hadal maaha mana faanayna mana hadlayno laakiin dad distoorkay dhigteen nidaamkay dhigteen oo toosa ku socda annaga jirna waanu diidnay gumaysi dhimashaan ogolnahay dulli waan diidnay dhimashaan ogolnahay isticmaar waan diidnay dhimashaan ogolnahay waxa weeyaan xaqiiqada waana ka rayn doonaa ogaadayna waa la xirayn doonaa wassalaamu calaykum waxaan ka xumahay dadkeena la dilaayo oo gumaysiga Tigreeya oo ku qoslayo korkooda intaana ku darayaa ogaadeenaya xaroodo haddana hees yaraa ku tuuranaya shacbiga wanaagsani ka awashanaad tahay midkaada wiiqee halkan ka wadaa tahay walaan ku dhaartay mid wadaniyaa tahay wacadkay dhiganaa kan ka weecan baa tahay intuu wayaanuhu wadankeena joogana weligiin hadaalinay halkina kasii wada Soomaali wadartee walaalaynunaayee waaciisi mooyeen alla yaa xanoo dirin kii naga weecdee walfi naga qaatana waxaa nagu waajiba inaa walinaayee daawadayaal waxaa halka inoogu eg barnaamijkeeni u heeli dadkaaga oo aan kusoo qaadanaynay xasuuqii dhacay 1994 inteena ku kulmi doono barnaamijyadan iyo kuwa lamida waa anigoo ah Shukur Maxamed Xasan iyo bahad ileeso idinka tagayna sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh